بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا كجرنا تحنيهني برشدا استنو صميننا وين تبلت وين ويب وين HTML أنا بس وريجيننا WordPress. حسيتني أنتم بيسي وإحنا برناي سنصو صميننا كتبلي أنا صديقنا kan la yiraahdo single post dhexdiisa. markii hore cilad baan ugu yartimi ciladiina waan ka saarnay markii ugu dambeysay markaasi ciladu waxay ahayd in qaybtani ay halka u durkaysay qaybta xagga bidix u durkaysay halkaas ayaan keenan ka saarnay inagoo markaas sameynay single page waan soo qaadnay qaybtii qaybtina waxay taalay post waxay ka saaraysiin article dusheeda taalay laakiin markii dambe waxaan keenay article dhexdeeda ayaan keenay article kuwa ka dhexdeeda keenay qaybta weyn marka article dhexdeeda ayaan keenay cashirkeena insha Allah ta'ala waxaan eegaynaa saa markaan gujino category-ga inuu wareejinaha linkiga category-ga inuu wareejinaha سانتاو سمينو waxaan tagaynaa laba siyabood baa inoo bannaan inaan u sameyno archiveska u sameyno link page-ka waxaan leeyahay category-ga u sameyno page gaara ana bixino category.php wixii tags aan u sameyno page gaara ana bixino tag.php author-ka noo sameyno page gaara isna leedahay author.php laakiin waxaas oo dhan waxay ka qaadanaysaa team baa ka qaadanaysaa sameyntooda marka waxaan ku koobnaanaynaa kalada archive.php kaasaan sameynayno kaliya waxaan soo qaadaynaa marka labadii u sareeyay mar walba heli jirnay aan qaadan soo qaadan jirnay gidheedar iyo grid photo xagana marka waxaan u baahanahay ku sameeyay marka warayso waxaan qoraynaa halkan كل بس صمينا PHP وفرنا وحن كبرنا مركا واحد يقولتا the archive title the archive title وحوليه هاي the archive title وحو كادوني لبا بارامتر بو كادونية بارامتر كوباد واحد لدونية وحي يعني before بارامتر before title كاغاني مكا واحد بحنيسي حاكو هرينية يكا كدن بيانا after ويان لبا واحد لوجه دا مركا title كد بسمينيسي waxaa ka horeynay iyo maxaa ka dambeeyay waxa ka horeynay baan leenahay waxa ka horeynay waxaan sameeynaa horta simple-kan tagaynaa waxaan keensanaa qaybteena title baan keensanaa marka qaybteena header kaasan keenina header-ka soo xirina halkaas aan ku qoraynaa wixii ka horeeya after keed waxa weeyaan h1 h3 ba ka dhig ama h1 kuma ku daa waxaan after noqonaya iyada laftigeedii h3 ga noo soo xidh waxaan tegaynaa WordPress-keeni iminka haddii aan soo refresh garayno ama gujino mid kamid ah linkskeena len waxaad arkaysaa inuu noo soo qoray category-ga la yidhahdo maxay len u fiiriso halka inoo soo dhigay category len waan ku noqonaynaa waxaan gujinaa kala yidhahdo word wixii noo soo qoray markaa category-ga la yidhahdo word haddii uu halkaas yahay author buu gujinayaa wuxuu eeganaya halkaas soo eeganaya kaasi ma author buu ka dhigaya hadduu yahay category buu ka dhigaya hadduu yahay tag buu ka dhigaya mar walba halkaas waxaynu u baahanahay inaga inoo soo dhigaya waxaan tegaynaa noqonaa page-keeni single page waxaan soo qaadaynaa article-ka intaasoo dhan baan soo qaadaynaa
inoo soo refresh kara haddaba markaa category koonaha tegayo ka imika halkaa inoo yimid sax weeyaan. intaa markaan haysano kadib waxaan eegaynaa haddaba soo dhiganaa halkan wixii categoryga work hostida ayaan doonay halkan soo dhigo. waxaan ku noqonaynaa haddaba intaa markaan sameyno waxaan tegaynaa haddaba pagekan laftigiisii xiriirka waan ka hooseynayna halkan kan hoosan tegaynaa. waxaan sameynayna ul li ameedaba kada li mugta haga waxaan kusoo qoraynaa wixii dhammaan u haystay ama inoo hayo uu inoo soo hayo ee ah boos inoo hayo. waxaan ku sameynaa markaa xaggaasna waxaan leenahay horto if have posts dhibic xaggan hoose ku xumina markaa hadduu post jiro ayaan leenahay kaa inoo soo dhig haddaanu jirinna waxba inoo soo dhigin. soo refresh gare waxiladan ka eegaynaa waxay noo soo dhigay abc keliya noo soo dhigay abc na waa tii inagu aan bixinay meesha keenay labadaasaan masaxaynaa. waxaan leeyahay haddaba intaas maadaama ay taas tahay haddaba while hadduu inoo hayaba while have bosses sidoo kale dhibic hoosan tegaynaa agaasna waan kusoo xirinaa end while. labadaa dhibcood iyo ama end while iyo ama end if iyo end for each iyo end for wixii doonayaan dib u muraajaceeyo fadlan casharadayna kale basic ahaa aduba ha u daawado php-ga. intaa markaan sameynay kadib waxaan tegaynaa halkan aan ku qorin haddana the post kadibna markaa xaggan haddaba soo dhigaynaa baan leenahay wixii posterka noo soo dhigay. waxaan qorinay haddaba marka li kanaga xid li the permanent una fiirso soo refresh gareen waxay noo soo dhigayaa markaa ka inoo soo dhigay permanent mi noo soo dhigay inaguna permanent mi doonayna cafwan inagu waxaan doonaynaa kala idhaahdo the title kana masax waxaa noqotay a xariif kaa dhex dhigay permanent haddana waxaan ku xadhigtaa baan leenahay the title haddana eeda inoo xidh soo refresh garee waana markiiba titlekii inoo soo dhigaa titlekii aan doonino kaba markiiba inoo soo dhigaa. midkaan aan ku noqonaynaa len labo inoo soo dhigaya labo ayuu markiiba inoo soo dhigaya. markuu laba inoo soo dhigo inaga waxaan doonayna inta inoo soo dhigo laba inuu haddana hoosta inoo soo dhigo permalinkiisii hoosta inoo soo dhigo. waxaan leeyahay expertskii waxaanu sameynaynaa markaa in yarba yar qurxinaynaa sidee kenya aan ka dhignay sidee kenya aan ka sameynay oo kale sida kaasoo kale aan oga dhignay ayaan isna oga dhigaynaa. intaa laftigeeda ayaan soo qaadanaynaa aan ku kala sameynaynaa waxaan tegaynaa single
waxaan soo qaadaynaa header gebgeda header inoo soo qaad header markaan soo qaadnay ayaan tegaynaa halkan la yidhaahdo haddana archive halkaas soo arkamaysin halkaasaan dhigaynaa halkaan markaan sameynay styleka waan ka masaxaynaa meesha ama ku daaba spankaa ka masax meesha ama bida gedigeeda ka masax waxaan leenahay post waxaan u bixinaynaa markaa post intaa markaan sameynay ayaa waxaan leenahay haddaba ka inoo soo qaad waxaanu tegaynaa markaa waxaad tiraahdaa hadda halkan history waxaan ka masax waxaan ku soo celinaynaa arif the permalink xagana waxaan leenahay nagu xidh intaa markaan sameyn dhamaystirnay waxaan tegaynaa haddana style p halkaasna haddana xidhaynaa waxaan leenahay post info kaasay ku dhex jiro inoo soo refresh kara haddaba news wixii noo sameeyey waan ku noqonaynaa archiveka nagu celi waxaa leenahay halkaa inoo xidh okay saasuu noo sameeyey marka intaas imika noo sameeyay arkaya laakiin mushkiladu waxa weeyaan halkan wuxuu leeyahay waxa weeyaan waa halkan iminka ad arkaysid wuxuu noo leeyahay halkan dhibci buu leeyahay sida sax u aragto soo yarayno halkaas halkan inuu yaryahay inuu leeyahay dhibci noo yari leeyahay inuu dhibcaha ma doonino taa waxaan kaga takhalusi karaynaa waxaan tegaynaa keeraan u tegaynaa waxaan u bixinaa class ama id ba ka dhig post info laftigiisii ama post list marka waxaan ka eegaynaa xaggan dhinaca id-ga isku mid bay noqonayaan id classes style dhibicda noqon mayso noqonaysa hash ka waxaan sameynaynaa waxaan la yidhaahdo list style direction style type waa none waa kaa ka qaaday imika u fiirso automatic buu ka qaaday automatic ayuu markaa u qaaday soo arkamaysin waxyaala fara badan baan ku samayn karaynaa halkeenan waan ku habeyn karayno home baan tegaynaa kan guji news waa laba isna kaasii guji haddana learn kaasii guji haddana
okay haddii aanu jirin ka waran haddii aanu jirin ka waran category baan leenahay tusaalahaan oo kale news baan gujinay news markaan gujinay siinay halkan news baan oo hayaa waxaan ka dhignaa maxamed wuxuu soo saarayaa inuu wax kala soo saaro maaha automatic wana page-kii noo soo saaro loo jiray maxay 404 automatic markii noo soo saaro page-ka 404 oo markii automatic noo soo saaro marka xisdan waxaan ku baranay saan ku qorxinayno aan ku sameynayno archives page-ka hadday noqoto kala yidhaahdo taxka category-ga author-ka wuxuuba page-ka archives-ka ayaa ku maamuli karaya waxbaana iskuna dabaqin hanako maxay ahaato waqtigaa ku lumin inaad meel page samaysid saas iyo ka faa'iidaysi wacan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.